هذا صحفيين Soomaaliyeedna maanta halkan ayay isugu yimaadeen iyadoo xaaladdu ay adag tahay oo xilli cudur dilaac uu jiro waxa halkan aad ku arkaysaan inay isugu yimaadeen oo ay ku midaysan yihiin press release kan ururka istaga صحفيين Soomaaliyeed ee FESOJ dalada Sooma SWJ ama ururka صحفيinta gabdhaha Simha oo halkan maartay maanta aan marti ugu nahay iyo sidoo kale SJS ururka صحفيinta SJS dhammaan waxay ku midaysan yihiin dhamaantood in ay maanta u soo baxaan sidii warkan ay u gaarsiin lahaayeen cabashada ah ummadda Soomaaliyeed xilli adaga lagu jira warbaahinta Soomaaliyana waxa hoos u dhacay hab xoriyatul qowlki waa sida la sheegay ama halka laga aqriyay waxa aad sare ugu kacay xarigii cagajugleyntii dhibaatayntii wariyaasha sida daraadeed annagoo midaysan waxaan muujinaynaa inaan ka xunnahay sida ummadda Soomaaliyeed wariyaasha Soomaaliyeed u shaqeynay ummadda had iyo jeer loo dhibaataynayo iyadoo aan loo soo maraynin sifo sharci ah waxa war laga waayay madaxdii Soomaaliya waxa lagu jira xilli cudur dilaac uu jiro ilaa hadda warbaahintu ma aysan helin in ay madaxweynaheeda su'aalo weydiiso in ay ra'iisul wasaaraheeda su'aalo weydiiso gudoomiyaha baarlamaanka inay su'aalo weydiiso xagee mareen hadda adduunkuna waa arkaysaa meelaha qaarkood madaxda xaaladaha jira awgood dadkoodu waxay had iyo jeer ay warka siiyaan maalinle annaga isbuuc lama bille xitaa hal maraan la anahay annaga marka heerkaasay naga maraysaa waxaan rabnaa in war la helo waxaan rabnaa annaga dawladdiid ma nihiin waxaan nahay dad Soomaaliyeed oo raba in dalka dawladnimo uu gaaro laakiin waxaan aaminsanahay saxaafad madax bannaan inay dalkan horumar gaarsiin karto saxaafaddiina caburin lagu hayaa dhibaato lagu hayaa sidaa daraadeed waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa xiga in xaaladdu ay wax iska bedeli doonto aad iyo aad u mahadsantiin